wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayd ayaa sheegay inuu gabagabo ku dhow yahay isla markaana labada bilood ee soo socda ay suurtagal tahay in dawladda Itoobiya ku dhawaaqdo aqoonsiga Somaliland. Sida uu ku sheegay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayd waraysi uu siiyay telefishinka DW ee dalka Jarmalka qaybtiisa Amhariga. Wasiir Kayd ayaa sidoo kale warbaahinta DW u sheegay in wada xaajoodyada ay socdaan waxaana la magacaabay guddiyo farsamo tan iyo markii la saxeexay heshiiskii is-afgarad 4 bilood ka hor balse waxa uu daboolka ka qaaday in hawshaasi ay gabagabo ku dhowdahay hadda kadib markii ay hakad gelisay bishii barakaysneed ee Ramadaan. የኪራይ ስምምነቱን ለመፈራረም ስንስማማ በተመሳሳይ ጠረጴዛና በተመሳሳይ ቀን ለሶማሊላንድ እውቅና የሚሰጠው የኢትዮጵያ አዋጅ ወዲያው መከተል አለበት። ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች አይደሉም፣ እርስ በርስ የተገናኙ ሁለት ነገሮች ናቸው። የባህር ኃይል የጦር ሰፈር ኪራይና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ስንስማማና ደስተኞች ስንሆን ወዲያውኑ ኢትዮጵያ አዋጁን ይፋ በማድረግ ለሶማሊላንድ እውቅና ትሰጣለች። waxaan kalsooni ka muujinayaa in wada hadallada iyo heshiiska rasmiga ah lagu soo gabagabayn doono 2 bilood gudahood in laga heshiiyo kareynta saldhigga badda ee Itoobiya iyo aqoonsiga madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya. የለየናቸው የተወሰኑ ቦታዎች አሉ። ከኢትዮጵያ አቻዎቻችን ጋር ከተገናኘን በኋላ አንዱ ይመረጣል። እያሰብናቸው ያለናቸውን የነዚህን 3 ቦታዎች ስሞች መናገር አልችልም። ነገር ግን ከኢትዮጵያ አቻዎቻችን ጋር የሚወሰን ይሆናል። si kastaba ha ahaatee haddii heshiiskan rasmiga ah ay kala saxeexdaan labada dawladood Itoobiya iyo Somaliland, Itoobiya waxay helaysaa 20 kiiloomitir oo ka mid ah 850 kiiloomitir ee xeebaha Somaliland, halka Somaliland ay helaysaa madaxbannaani iyo aqoonsi. Wasiir Ciise Kayd waxa uu xaqiijiyay in 3 meelood ee muhiimka ah diiradda la saarayo, balse waxa uu ka gaabsaday inuu shaaciyo ilaa inta la soo gabagabeynayo wada hadallada ay la leeyihiin dhigooda Itoobiya. ሁሉም ነገር ሁለቱ ቡድኖች በስምምነቱ ላይ ለመደራደር ሲገናኙ ይወሰናል። የህግና ሌሎች በርካታ ጉዳዮች አሉ። በመጪዎቹ ወራት ምናልባትም በ2 ወራት ገደማ ይጠናቀቃል ብዬ አስባለሁ። heshiiska dhex maray Somaliland iyo Itoobiya waxa asas iyo mucaarado xoogan kala hortimid dawladda federaalka ee Soomaaliya walow ay saskeedaasi noqon waayeen mid hirgala. abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV. ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb. follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo comment kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsan tahay sida aad noogu xidhan tahay.